halkani waa Antarctica meesha ugu qabow adduunka oo dhan kanina dhanka kale waa xayawaan yar oo si dabargo'aya oo halkan ku nool kaasoo isku dayay inuu la xiriiro qofka hortaagan isagoo adeegsanaya codkiisa balse haddaba sidoo kale sidee ayaan halkan Antarctica ku yimid waqti xaadirkan waxaan ku dhex jiraa safar aan ku marayo qaarad kasta oo adduunka ka mid ah iyadoo wax lacag aan iga baxayn lacagtaan adeegsanay inta safarkan wadana waxay noqon doontaa lacagta ay siiyaan dadka aanan garanayn ee i naxariista si aan safarkan soo gabagabeeyna waxaan haystaa 30 cisho oo kaliya haddaba in arrintaasi ii suurta gashay iyo in kale waan isla socon doonaa ee ku soo dhawaada markan safarka aynan wax lacaga bixinayn ilaa imika waxaynu soo marnay qaaradaha Yurub, Afrika, Asia iyo xalqadii u dambeysay oo iyadana aynu soo marnay Asia iyo Australia halkaas oo aan awooday inaan ka soo urursado lacagta aan ku tagay safarka qaaliga ah ee Antarctica anigoona heshiis la soo galay shirkada caana kuwaas aan kula soo heshiiyey inaan productskooga waxay siin doono marka aan gaadho qaarada qabow ee Antarctica sida awgeedna muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaalkii ugu horreeyay ee aynan ka ururin lacagta aynu isticmaali doono maadaama already layna siiyey qarashka aynu ku tagayna safarkan balse kaliya hal shay ayaa laynooga baahan yahay waana inaynan wax qalada samayn maadaama safarkan uu yahay safarkii ugu adkaa ee ilaa imika aan galo inagoona ku safri doona biyaha khatarta ee badweynta taasoo lagu waayay dad gaadhaya 20,000 oo badmaaxe iyo sidoo kale 800 oo markab iyagoona la waayay si kaliya ay u soo gaadhaan qaaradan barafka ah oo heerkulkeeda ugu hooseeya uu gaadho -94 degree balse sidoo kale lacagta aynu soo urursanay kaliya safarkan ayay naga dhamaan doontaa iyadoo intaa wixii ka dambeeya markaynu gaadhno Antarctica wax free aynu ka helin aanay jirin sidaa darteed xaaladdu waa inaynu isbadbaadino oo aynu ku dhex noolaano Antarctica balse haddaba ugu horreyn waa inaan raaco flightkeega 2 cisho qaadanaya kaasoo aan kaga imanayo dalka New Zealand kuna tegayo magaalada ugu koonfursan adduunka ee lagu magacaabo Cisho Ayaan ee dalka Argentina ku taala halkaas oo ka dhaqaaqi doono safarka aan ku tagay Antarctica saaxiibayaal haddaba markan waxaan joognaa Cisho Ayaan waa meesha ka dhaqaaqi doono safarka aan ku tagay Antarctica halkanina waa qabow runtii balse way qurux badan tahay bal meesha u fiirsada imikana waxa la gaadhay waqtigaan u diyaar garoobi lahayn doonta aan raacino balse ugu horreyn waxaan rabaa inaan soo helo waxaan isku kululeeyo inta aan safarka ku guda jiro dabcan sida xeerarka u yaala safarkan waxaan ku qasbanahay in wax lacag aan bixin sidaa darteed waxyaabaha aan soo qaadan doono waxaan isku day doonaa inaan free ku helo I'm currently filming a video. Is it possible for me to have this hat? I'm sorry, but no. Do you have a penguin hat? samarku iga sii dhamaanayay laakiin ugu dambeyn anigoo ku sii socda dukaanka xiga waxaan la kulmay ninkan kale isaguna dalxiisa ah kaasoo isaga laftarkiisu si iskiya iskugu dayaya challenge-gan waalida ah ee lagu tagay Antarctica ninkan markii aan la kulmay kadib raja ayaa gashay si aan u helo koofiyadan oo markii hore aan ka quustay So are you going to Antarctica? Or are you? I'm in Antarctica today. Are you? Today? Yeah. I'll see you there, brother. Are you going today? I'm going today too. I'll see you there. dukaanka xiga markaan galayna waa la ogolaaday Yes? Thank you, my friend. Thank you so much. What's your name, my friend? Niko. Nice to meet you. Thank you so much, Fernando. waa markii ugu dambeysay lacagta saaro ciidda South America laakiin waan ku soo noqon doonaa ee ugu horreyn aan tago Antarctica halkanna waa sirrahayaga Wow. Me and George staying here. I don't fit. I don't fit in this. aniga iyo George ayaa halkan joogi doona doontan dad isu urursaday oo wanaagsan ayaa saarnaa inkastoo ahayn dad aan isgaranayn haddana qof kasta qofka kale ayuu salaamiyey Yeah, I made it, man. I made it. Glad to welcome you on board. This is our last trip of the season. I'm glad that you're here to get to enjoy and get to know Antarctica. waqti fiican ayaan u qaadanay saaxiibayaal laakiin markan doontu waxay u dhaqaaqaysaa si aan u galno safarkan waalida ah markan waxaynu u dhaqaaqaynaa dhanka Antarctica markii challenge-gan aynu bilaabnay Antarctica inaynu tagna riya ayuun bay ahayd ama sidoo kale shaqaan macquul hayn baynu qabanayno laakiin imika sidaan aragna xaqiiqa ayay isku bedeshay waxaynu ka soo gudubnay 4 qaaradood markanna waxaynu tegaynaa qaaradda 5aad innagoo wax lacag aanay marnaba inaga bixin qorraxdii markan way dhacday waxaynan u dhaqaaqnay dhanka badda innagoo halkaa ka bilownay safarkeennii 48 saacadood qaadanayay ee aynu ku tegaynay Antarctica waxa kaliya aynu rajaynaynaa waxa weeye in dariiqa trick loo yaqaanaa
uu inoo naxariisto mawjado waaweyn aanu inagu kicin habeenkan madow aynu badda ku dhex jirno. doontu waxay bilowday markaan leeleecdo taasoo la micno ah inaanu galnay markaan biyihii ugu khatarsanaa ee marinka Drake. marinkan Drake lagu magacaabaa waa biyaha u dhexeeya qaaradda South America iyo sidoo kale qaaradda barafka ee Antarctica. biyahan haddaba waxay leeyihiin mawjadaha ugu sarreeya ee halka ugu sarreysa gaadha kuwaasoo dhererkoodu mararka qaar gaadha 12 mitir. sida la qiyaasana biyahan waxaa ku maqan nafaha dad gaadhaya 20,000 oo qof taasoo ay ugu dambeysay sanadkii 2022 markaasoo mawjada roog lagu magacaabo ay daloolisay markabkan daaqadihiisa halkaan hal qof ugu dhintay. tani waa cabsiba runtii sariirta markaad ka soo degto waaba cabsi. Just getting out of bed is terrifying. si aad u badbaaddo waxaa lagugula talinayaa inaad sariirtaada joogto qolkaaga ha ka bixin marnaba markuu leyrka casishidan yahay wax kastoo dhacana marnaba dibadda ha u bixin. This is not an exaggeration. saaxiibayaal waxaynu soo galnay marinka Drake waana sababta ay meeshan u tahay meesha ugu khatarsan adduunka oo dhan. marka la eegayo doomaha casrigaana meeshan waa meel khataraba. biyahani saaxiibayaal kaftar ma aha. Waters are no joke. Alright, let's go. Oh gosh. Oh. Okay, yeah. Let's go. This is not a joke. Go. Look at this. That's the sky. Oh, all the way back down. All the way to the water. calooshaydu marnaba saxdii may ahayn wax xun ayaan ka dareemay caloosha. dabcan uma adkaysan karaba dhibaatadan mawjadaha khatarta ee kolba dhinac u socda. maalintii oo dhanna qof sidaa u dhacdhacay ayaan ahaa ilaa habeenkii. And the worst part was laakiin waxaan kasii yaabay labadan qof markaan kula kulmay cashada kuwaasoo waxaan aanu saamaynba. islaantan iyo odayga isqaba ee da'dooda 70 ku jira kaliya halkan waxay u yimaadeen si ay u soo arkaan bahalka penguinka lagu magacaabo. khatarta biyahana way u adkaysanayaan si ay halkaa u gaadhaan halka anigu maalintii oo dhan aan cabanayay. sidaa darteed waa inaan damir isku yeelo si adkeeyo. maalintii koowaad sidaas ayay nagu dhaaftay waaguna uu baryay aniguna waxaan soo kacay anigoo dhiiri gashan oo ay dhiirigeliyeen islaantii iyo odayga xaltoole. dabcan xaaladaydu ma wanaagsana laakiin waa inaan is adkeeyaa. saacadii ugu horreeyey ee suuxii xigayna masaafo dheer ayaanu soo jarnay. ugu dambeyn safarka adag markaan soo galnay waxaanu soo gaadhnay Antarctica. iminkana Antarctica ayaanu sii gelaynaa. oh my goodness me. tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu la yaabka badan ee aan arkay noloshayda. keliya meel maran waxaad arkaysaa waa biyo baraf iyo buuro. waxaan arkaa waaba intaa dhammaan ma rumaysan karo kadib markii aynu challengegan go'aansanay inaynu halkan ku dambayn doonno oo soo gaari doono Antarctica. ugu dambayn qorraxdii way soo baxday markii ugu horreysayna waxaan si fiican u aragnay Antarctica. sidoo kalena waxaynu ka soo badbaadnay marinkii Drake Passage lagu magacaabayay waxayna soo gaadhnay Antarctica. safarkan waa safar qayb ka ah safarka aan rabo inaan ku gaadho dhammaan qaaradaha oo dhan kaliya 30 cisho aniga wali baan bixinay wax lacaga. qaarad walba markaan tagay waxaan haystay list challenge aan dhamaystirayay si aan ugu gudbi karo qaaradda xigta. halkan Antarctica kama duwana challenge dheeraad oo aan haysto kaasoo ah inaan xeerarka Antarctica jabiyo. waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan oofiyo ka soo baxo balantii aan la soo galay kabariyadii soo sponsor gareeyay ee qarashka Antarctica ka soo bixiyay safarka. kaliyana waxaan haystaa 4 cisho taasoo aad kaan doonto inaan wada fuliyo. Board in the boat to get to Antarctica. This is a special moment. Oh, great. Sorry about that. Okay. Oh my gosh. saaxiib yaal ku soo dhawaada qaaradda shanaad ee nimid Antarctica. sidaasna safarkii koowaad ee galnay Antarctica gudaheeda waxaan markan doonayay inaan fuliyo challenge-kayga ah inaan sawiro mid ka mid ah xayawaanada ku nool Antarctica. kan wuxuu noqon doonaa challenge-deena ka ugu fudud. xayawaanada halkan jooga aad bay u tiro badan yihiin sidaa darteed ay u fududaan doonaa inaan challenge-ka fulino. Oh my gosh, penguins! We've got penguins already. We've got penguins right there. balse saaxiibayaal maadaama dadka ku nool Antarctica ay xayawaanadu ka badan yihiin challenge-geena waa inaan yara adkayno. halkii markii hore uu ka ahaa inaynu hal xayawaan sawir ka qaadno markan waxaan dooranaa 3 xayawaan oo kala duwan inaan sawiraan ka qaadno. My gosh, a seal! We haven't even stepped foot yet. 2 seals. We can't even take a picture of this right now because we're not on the continent yet. markan waxaanu soo gaadhaynaa qaaraddeenii shanaad ee Antarctica waanu si toos ah u soo gelaynaa.
waana qaaradda aan ugu xiiseynayay inaan tago. Percentage-ka dadka soo gaadhay Antarctica marka loo eego population-ka dunida wuxuu ka yahay 0.02. Aniguna dadkaas yar ee kooban ayaan kusoo biirayaa maanta. Welcome to Antarctica, guys, okay? Thank you. Setting foot on Antarctica the first time. Here we go. Thank you, my friend. Oh my gosh, Antarctica so George, we made it to Antarctica. We made it. Oh jeez, almost slipped in Antarctica. Pam, we made it to Antarctica. Well done. xayawaanka xiga wuxuu noqon doonaa xayawaanka ugu cajiibsan. haddii aad u fiirsato halka waxaad arkaysaa nibiriga hambaga. sidaan waxaynu ku dhamaystirnay challenge-geenu ugu horreeyay. haddaba nibirigaas markii aan sawirnay yaa sheegi kara xayawaanka kale saddexaad wuxuu noqon doono. waxaa laga yaabaa inuu noqdo nibiga kale wertris wiil loo yaqaano haddii aan nasiib leeyahay weeye. ugu dambayna xayawaankeenii saddexaad oo ah kii ugu dambeeyay aynu sawiranay halkan ayuu joogaa. sidaana waxaynu ku dhamaystirnay challenge-geenu ugu horreeyay markaynu joogno qaaradda Antarctica. They're actually sea lions. They walk with the 4 flippers, and only sea lions can do that. Nature, what a beautifully amazing thing. markana waxaynu ku noqonaynaa doontaynu ka soo degnay. Antarctica waxaa laga helayaa 200 oo nooc oo kamid ah xayawaanada badda. xeebta dhagaxaanta leh ee dhulka mainlandka Antarctica waxay hoy u tahay in ka badan 100 milyan oo shimbirood. sida aynu halkan ka arkayno shimbirahan hortayna yaalaana waa qaar ka mid ah shimbirahaas aynu sheegnay. u fiirso bal xayawaanadaas siday u badboodayaan. Oh my gosh, look over there. Oh my goodness me. We are literally sailing. maalintii ugu horeysay Antarctica gabagaba ay ku dhowdahay. wax walba waan filayay maalintaasna waan helay. waxa kaliya rajaynayay wuxuu ahaa in labadeedii saaxiib ay islaantii odayga ahaa aanay degdeg uga tagin Antarctica kadib markay yimaadaan. dabcan aad ayaa naga xumaaday in islaantan iyo odaygani intaasoo dhan ay soo socdeen, laakiin imika ay ku adkaatay inay meesha sii joogaan ama ay meelo kala duwan oo Antarctica ka mid ah marmaraan maadaama da'dooda ay weyn tahay. keliyana benguinida ay jeclaayeen waxay ka arkeen meel fog oo toos uguma tegi karaan awoodooda gabtay. inkastoo aan haysano weli 3 cisho oo aan ku jiri doono dalxiiskan, welina waxay haystaan jaanis ay ku arki karaan benguinida ay taageerayeen. maanta waa maalintii labaad. challenge-ka aynu maanta samaynanaa waa inaynu jebinno xeerka Antarctica. haddaba sidee aynu u jebinaynaa? waxaanu jebinaa innagoo ku qoraynaa 2 nin aan hore uga soo ballan qaadnay inaynu magacyadooda Antarctica iyadoo barafa ku qori doono. in magacyada dadka lagu qoro Antarctica waa ka mamnuuc. sidaas inaan xeerka ku jebin doonaa. xeerarka soo socda Antarctica waa ka mamnuuc inaad ku fadhiisato barafka, inaad ku jilba joogsato barafka, iyo sidoo kale inaad taabato barafka. dhammaanba ficiladaasi waa qaar ka mamnuuca Antarctica markaad joogto. sidaa darteed haddii aan magac ku qoro waxaan rajaynaynaa inayna maantayna qaban, waayo haddaynu waxyaabaha soo socda samayno dhibaato weyn baynu geli doonaa. markan halkan baynu joognaa waxaynu soo gaadhnay jasiirad kale oo ka tirsan Antarctica. Look at the penguins. Oh my gosh. How close am I to this penguin? Is that a real penguin? Now, penguins, do you know a place I can go to disappear? Got you guys. Love, brothers. I needed a waxaan u baahanay meel buuq uu ku yar yahay si aan promotion ugu sameeyo ama ugu xaysiiyo shirkadii aan ka soo ballan qaaday. intaa kadibna aan barafka wax ku qoro. dabcan waxaan dad iyagoo meesha joogaan ficiladaas ma samayn karo. si aan tan haddaba u samayno waxaan u baahanay in iska dhigno dalxiis caadi ah. kani waa penguinka Gentoo penguin lagu magacaabo. horomayno arkan aad bay cajiib yihiin. ninkaas halka taagan dadka ayuu eegayaa, waana ninka meesha ilaalinaya. qof walbana halku tagay ayuu eegayaa. sidaa darteed waa inaan ninkan ka fogaanaa. dadka dhan meesha way ka wada tegeen oo way naga horeeyaan. innagana waxaynu go'aansanay inaan xagga dambe yar joogno si aan waqti u helno. waxaynu doonaynaa inaan u samayno okay hal qof unbaa imka hadhay, kadibna qorsheynaa ayaynu ku dhaqaaqaynaa. waayo qof walba halkaas uu sii socda ayuu tegayaa. ninkan waaba sirdan ruushana malaynaa. ninkan bayna istaajiyey. ninkii wax ilaalinayay waa halka taagan. macquul maaha inuu halkan naga arko waxaynu samayno. haddaynu dhinaca kale eegnana kaliya waxa jooga ninka aynu ka shakinay sirdoonka ruushka. okay qorshaha nimka ku dhaqaaqna haddaba. ugu horreyn haddaba saacaddan ayaynu xaysiin doonaa. You want one of the coolest watches in the world? Get them from W. Zalesniak Watches. They tell the time so well, and they're as cool as ice. Coolest in the world. markan waan ku guulaystay inaan ka soo baxo ballantaydii oon wada xaysiiyo dhammaanba shirkadii waxay soo dhiibtay. xaysiiskayga markaan sidaa u dhammaystay dadka way soo noqdeen, laakiin weli wixii ugu muhiimsanaa maynu qaban. taasina dhibaatay nagu tahay. maxaynu samaynaa? weli waxaynu u baahanay inaynu jebino xeerka Antarctica. waxay ahayd in intaa ugu horraysiino oo aynu samayno oo aynu magacyada meesha ku qorno. iminka ninka askariga ahaa baa inagu soo noqday. dhinacan baynu dhaqaaqaynaa imika. saaxiibyaal markan waxaan noqon doonaa dambiile caalamiya, laakiin bal suug Antarctica malaha waddanba maaha. marka ninka askariga ahaa uu noo soo dhow yahay waa inaanu degdegnaa oon hawshayda qabsanaa. wax waqtiya ma hayno inaan hore u soconaa. Move fast. We don't have much time. Stay low. Stay low. Eddie. abi iyo Eddie magacyadiina aniga halka ku qoray. weligiina barafkaas ay magacyadin ku waliyaan inaad caawiseen. aad baad mahadsantiin. marnaba maan filayn
in waxyaabaan caadiga aynu samaynayna ay dembi weyn gelin doonaan sidaana imika waxaan ku noqday dembiile caalamiya waana wixii ugu khatarsanaa ilaa imika aan ku dhex sameeyay channelkan imika kadib haddii qof i weydiiyo maxaad khatar ku tahayna waxaan u sheegayaa inaan Antarctica ku soo qoray magacyo dad saaxiib yaal imikana bal eega viewgan meesha Wow. dabcan saaxiib yaal halkan waxay noqonaysaa meelaha ugu xiisaha badan leh ee aan soo booqday intii aan soo noolaa balse waxaas oo dhan waxa ka sii daranba in halkan aynu ku nimid lacag la'aan laakiin weli waxaan dareemayaa inay waxayga maqan yihiin talo odayga iyo islaantaanu saaxiibkahan ee Bam Clarence maye saaxiib yaal labadeedii saaxiib halkan way soo gaari waayeen. Do you know they're at the ship? Yes, Clarence came and he saw the disembarking site and went straight back. Oh, they went back again. Yes. Oh no. Pam didn't even get here. dabcan waxay ku noqdeen markabkii oo dib ay u noqdeen ilaa imka halkan laba cisho joognaa halkan weli marna may soo gaadhin aad baan uga murugeysanahay inaanay jawigan nala qaadan saaxiib yaal anaa uga faa'iideyn doonaa muuqaal ayaan halkan uga duubi doonaa aan ku tusayo meeshaan joogno maadaama ay soo gaari waayeen labadeedii saaxiib ee Bam Clarence marka waxaan tusi doonaa meeshaan joogno halka waxaad ka aragtaan penguinka Gen 2 loo yaqaano waan ogahay waxaad ku fikiraysaan kuwan waxaad maleynaysaa generation 1 penguin yihiin laakiin waa generation 2 waana sababta loogu bixiyay Gen 2 penguins saaxiib yaal markabkaad saarantiin waa ka halkaasaan idinka arkayaa kolley imika waad iska baashaalaysaa markabka dhexdiisa sidaa darteed Bam Clarence aad baan idin salaamayaa waaw kamaradana saaxiibka ka qaatay sawir cajiib ayaan ku qaadayaaba sida sawirkan oo kale sawirkan waxaan ugu magac dari doonaa Bam Clarence alla maanta maxaa sawir cajiib halkan ku qaaday sawiro aad u qurux badan saaxiibayaal markan haddaba haddii aanad weli muuqaalkan like saarin waxaan kaa codsanaynaa inaad like tas ka saarto sidoo kalena saaxiibayaal markii ugu horreysay aadna daawanaysa hadday tahay subscribe-tana noo saar saaxiibayaal sawirada aad aragteen baan qaadi lahayn haddaanu ninkan Yaasiin lagu magacaabo ay caawin lahayn oo kamaradiisa aanu dhiibi lahayn sidoo kale inaan halkan wada joognana waaba la yaab Yaasiin laftarkiisu waxa uu soo jaray masaafo aad u badan oo soo socdaalay si uu soo gaaro meeshan ugu koonfursan adduunka safarkiisa waxa uu ka soo bilaabay magaalada uu deganaa ee Vancouver Canada iminkana waa kan wuxuu joogaa Antarctica masaafada soo socdaalay waxay gaaraysaa ilaa 40,000 oo kiiloomitir isagoo ka yimid dhanka waqooyi una soo socdaalay dhanka koonfureed si uu halkan u soo gaaro sidoo kalena uu dokumentiin ugu sameeyo safarkiisa oo uu duubo muuqaal iyo sawirana iskaga qaado. Bro, this is the best part of the trip by far. Is it? Yeah, you're like in an isolated continent, penguins and all these types of animals you can't find anywhere else. No, it's special. I have to admit, I agree. labadeeduba safar cajiib ayaan soo galnay si aan halkan u nimaadno iminkana maadaama aan isku raacnayn qaybtan ahayd qaybta ugu fiican ee safarkayga ayaa ku caddayn karta meeshaan ku sugannahay iyo xiisaheeda maantana shaqadaynu halkan ayay ku eg tahay iminkana aynu dib u noqonno. Vamos. Muchas vamos. Glad to see I made such a huge impact. Oh my gosh. That is shocking. sidaana saaxiibayaal waxaynu ku dhamaystirnay challenge-geennii labaad saaxiibayaal markan sidaad aragtaan wax ka farxad badan ma jirto inaad soo noqoto dembiile caalamiya oo aynu xeerarka meeshan yaalla soo jebinay laakiin weli waxa ayaa hadhay waa shaqada aynu beri toole qaban doono taasoo ah inaynu buur fananno balse markan aynu dib ugu noqonno markabkii oo weliba aynu u nasanno hawsha aynu beri qabanayno sidaana waxay noogu soo gabagowday maalintii labaad kadib cunto macaan iyo sidoo kale fiiyo cajiiba oo aynu soo aragnay isla maalintii labaad ayaana sidaa ku bilaabmatay meeshan anaaba ugu horreymid si aan doonta u koro laakiin markaan isku dayay inaan doomaha koro markiiba waxaan eegay dibadda waxaanan ogaaday in heerkulku halkii ugu qababa uu xaalatoo la gaadhay balse waxaasoo dhan umaynu joojin maadaama aynu maanta rabno inaan challenge kala samayno marka waxaynu u soconnaa si aynu u korno buur ku taalla Antarctica tanina waxay noqon doontaa experience kale oo aynu soo helayno haddaynu ku guulaysano oo buurta aynu korno buurta aynu korinaa waa buurtan haddaba cimiladu markay caadi iska tahay aad bay u fududeen buurtan la koro balse iminka xaaladdu ay adag tahay cimiladuna aanay wanaagsanayn buurtanna uu baraf daboolayba way adkaan doontaa inaynu korno buurtan saaxiibadayda penguinka iyagoo dhiirigelinaya waxaan ku qasbanahay inaan noqdo qofka ugu horreeya ee buurta halka ugu sarreysa gaadha marka saaxiibayaal waynu isku daynaa sidaad aragtaan muuqaalo drone ayaynu duubi doonaa si aynu buuraha halka sare uga aragno ama buurta aynu korayno si aynu u aragno saaxiibayaal aad bay u adag tahay meeshani laakiin waxaan noqonayaa qofka ugu horreeya koro buurta saaxiibayaal maadaama go'aansadii qofka ugu horreeya meesha inaan noqdo waxaan ku qasbanahay inaan dadka oo dhan ka dheereeyo oon hore u socdo balse saaxiibayaal sidaan filayay kumay noqon maadaama baraf badan meeshan uu saaran yahay way ka adkaatay sidii aan filayay laakiin isma dhiibayaan ugu horreyn doonaa. I will be the first one. Hey. ninka dalxiiska hagaya markii uu maqlay inaan doonayo inaan uga hor karo dadka ayuu ku dhiirigeliyay in iyaguna ay la tartamaan laakiin waxaas waxba kama bedeli karaan saaxiibayaal sidaa awgeed markan waxaan noqday ninka ugu horreeya ee koray buurtan inkastoo xaaladoo dhan ay ku adkaatay saaxiibayaal laakiin ugu dambeyn anaa ugu soo horkaray buurta
dadka kale haddii ay sheegtaan inay meeshan iyo ugu soo horkareen been bay sheegayaan sidaa darteed saaxiibayaal buurtan waa in magacayga loogu magac daraa saaxiibayaal sidaas waxaynu ku kornay buur ka mid ah buuraha Antarctica markana saaxiibayaal waxaynu gudbinaa challenge-ga xiga saaxiibayaal markan waxay qabanayaan tartan la gelayo kaasoo la dhex geliyay biyaha barafka ee fadhiya meeshan challenge-gan wuxuu noqonayaa ka igu adag ilaa imika laakiin haddii aad hore ii taqaanay challenge-gan challenge ba uma arko fursad isoo martayaan u arkaa keliyana uma arko tartan aan biyaha ku dhex gelayo laakiin sidoo kale waxaan u arkaa fursad aan ku helayo lacagta flight-kayga xigaan iskaga bixin lahaa waayo sidaan arkanay saaxiibka Yaasiin aad buu isku kalsoonaa maadaama uu ka soo jeedo magaalada Vancouver ee Canada halkaasoo ay barafka la qabsadeenba saaxiibka waxaan kula heshiiyey inaanu tartan galno tartankaas haddii aan anigu ku guulaysto flight-ka diyaaradda aynu kaga tegin Antarctica ayuu iga bixinayaa haddii isagu iga guulaystana barafkan ayaan 3 jeer dhex geliyaa sidaa darteed inaan tartanka la gala waan ku qasbanahay maadaama safarkan adduunka oo dhan aan ku soo maraya ay hadheen 2 qaaradood oo kale waqtiga aan haystaana ay tahay kaliya 10 cisho flight-ka aan dib ugu noqonayo Rio de Janeiro waan ku qasbanahay sidaa darteed in la iga guulaysto ma ogolaanayo maanta waayo waan ku qasbanahay inaan guulaysto You ready, brother? Get it. Oh my gosh, this is awful. This is awful. I'm absolutely dreading this. saaxiibayaal sida caadiga biyaha iyo barafka marka la dhex gelayo waxa lagu dhex galaa biyo iyo xoogay baraf laakiin halkan imika aynu joognaa waa biyo heerkulkoodu marayo -2 degree waxayna ka hooseeyaanba heerkulka biyuhu ay ku fadhiistaan sababta halkan ay u fadhiisan waayeen waa milixda biyaha ku dhex jirta badda markana tartanka waan bilaabnay qorshaha markan yaalana waa inaan is adkeeyo oo aan marnaba la iga dareemin Let's see who gets it. 3, 2, 1. inkastoo xaaladdu ay ugu adag tahay waxa laga yaabaa xayawaanada penguin-kana waa adkaystaan qabowgan laakiin labadan uma adkaysanayaan biyahana kuma sii jiri karaan si aan filayno Now you're in penguin poo. Tremendous. Oh, I could be here all day, mate. I could be here all day. 5 mirir ilaa 6 mirir oo kale haddii ay kusii jiraanna temperature-ka jirkooda oo hoos u dhacaya 34 degree xaaladdu way ku adkaan doontaa intaa wixii ka dambeeya inkastoo haddaba saaxiibayaal ay xaaladan ahayd xaaladii ugu xumeed ee noloshayda aan galaba laakiin haddana ugu dambeyn waan guulaystay Did you win? Yes! I was struggling so much. Oh my gosh! Look at me. I was struggling. laakiin dhibaatada aan maray oo dhan way u qalintay Yaasiinna uu ku mahadsan yahay maadaama iga aqbalay tartankan sidaa darteedna waxaynu ku guulaysanay sidaan meesha uga tegi lahayn oo Rio de Janeiro aan u gudbi lahayn intaa kadib markaan isqallajinayna aniga iyo Yaasiin waxaan dib ugu noqonay doomiyahan raacinay halkan oo markan abaal kale inuu ii sameeyaan ka dalban doono Yaasiin markan waxaan raaci doonaa safarkiisa uu dib ugu noqonayo isagoo sii maraya Patagonia halkaas oo ah deegaan ku yaala South America sidoo kalena caan ku ah muuqaaladiisa kala duwan ee dhulka iyo silsiladaha buuraha iyo sidoo kale saxaraha balse markan cunta ayaan cuni doonaa inagoona halkan kula kulmi doona saaxiibadaydi Bahman Clarence odayga iyo islaantii anoo tusi doona muuqaaladan soo duubay kuwaas aan fiidyo uga sameeyay Big editing skills. You ready? I'll turn it up loud. So cool to me. saaxiibayaal inkastoo ay Bahman Clarence ku farxeen fiidyoga laakiin haddana marnaba loolama barbar dhigi karo haddii ay caadi u arki lahaayeen Bahman Clarence way isku dayeen inay noo raacaan safarka aanu galnay Antarctica dhexdeeda laakiin xaaladaha oo adag darteed ayay suurtagal weyday maalinta xigtayna saaxiibayaal dadkii markabka ayaan waqti iskala qaatay oo nacnacayga siiyey Okay, but you got honest opinion. I'm telling you my honest opinion, right? Honest. I haven't said this before, but getting people to try my sweets is one of the most nerve-wracking things for me. iyadoo ugu dambeyn sidaa ku gaadhnay maalintii ugu dambeysay afraad laakiin ilaa imika waxaa dhiman 2 qof oo wixii meesha ay u yimaadeen aan weli soo arag How you doing? You coming on the island? Hopefully. Really? Oh, that's amazing. markan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maqallo markii ugu dambeysay in Bahman Clarence ay isku dayayaan inay jasiiradda noo raacaan oo markii ugu dambeysay ay isku soo dayaan inay soo arkaan wixii ay meesha u yimaadeen haddaba isla markaan xilliga jasiiradda soo gaadhnay waxaa kaliya niyadda ku hayay ee rajadeedu ayaa ahayd in Bahman Clarence ay ku guulaystaan oo ay awoodaan inay meesha tagaan ugu dambeyn sidaas ayay ku soo gaadheen Bahman Clarence oo meesha ay u yimaadeen balse weli riyadooda waxba ka dhiman waana inay penguin ka soo arkaan Finally make it. There we go. We made it. Let's go. balse waraadiga da'daadu tahay 80 jir haddana aad go'aansatay inaad Antarctica ka timaado islaantii baa mootaa penguin-ka jaalada ay markaan aragtay seen arkayno runtiina way u qalantay inay meesha timaado Oh, yes. That's cool. I'm really happy you came out here. saaxiibayaal ugu dambeynna daqiiqadahani waxay ahaayeen daqiiqadihii ugu dambeeyey aynu joogno qaaradda Antarctica dabcan waqtiga aan halkan joogay waxaan odhan karaa waan ku raaxaystay
waana safar hal mar nolosha qofku uu la kulmo waxaan u maleynayaa in boqolkiiba 0.5% dadka adduunka oo dhan inay halkan yimaadeen taasina waa wax aad u cajiib ah dabcan waxaan oran karaa waxyaabaha ugu la yaabka badan leh ee halkan markaad timaado arkaysaa inay tahay cimilada taasoo adigoo arkaya isbedelaysa ilaa halkan haddii aad muuqaalka soo gaadhay haddaba saaxiibayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad like saartaan sidoo kalena subscribe haddii aanad hore noogu saarin subscribe noo saar aad baad mahadsantiin waxaan rajaynayaa inaad safarkan iyo sidoo kale muuqaalkan aad ku raaxaysateen